nimankii loo aasaasay inay muusaadka ka hortagaan Israa'iil sidoo Israa'iil yaa iyagii la shaqaaleysiiyaba hore uga digay ayaga muusaad noqday yes tiiba dhacday ku darso yahuud ugu badan bariga dhexe waxay degan yihiin Iran ay degan yihiin taasna waxa way saameynteeda ay ku yeelanaysaa ninkan Khamenei horta wuxuu hore u soo noqday madaxweyne dalka Iran uga soo noqday 1981 ilaa 89 madaxweyne ayuu dalka ka ahaa ninkan wuxuu ku dhashay magaalo la yiraahdo Mashhad ku dhashay kadib meel la yiraahdo Qum oo xarunta diiniga ee Iran iyo wax ku soo bartay ilaa uu ka gaaray marxaladda ayatullah uu ka gaaray ayatullah waa marxalad la gaaro waa jaga la gaaro waa uu ka gaaray marka uu dhintay ayatullah ruuxullah al-Khomeini markuu dhintay 1989kii yaa lagu bedelay isaga murshidku uu noqday waa tahay daawadayaal dagaalka u dhaxeeyo Mareykanka iyo Israa'iil oo dhinac ah iyo sidoo kale Iran waxa uu galay maalintiisii labaad subaxnimadii hore ee saakana waxa warbaahinta qaranka Iran ay tabisay dilka hogaamiyaha ugu sareeya ee Iran Ali Khamenei waxa istuudiyaha nugula sugan Maxamed Cabdi Afay falanqeey iyo saxafi u dhundaloola arrimaha bariga dhexe oo aan ku falanqeyn doono iyo xaaladihii u dambeeyay ee soo cusboonaaday Maxamed marka horeysa ku soo dhaweynaya maxaa u dambeeyay waxa u dambeeyay Iran in rasmi ay u ilaamisay geerida ayatullah al-Khamenei u ilaamisay طبعا sida caadi ah waxa muuqata ilaa shalay inay ogaayeen uu dhintay oo shalay subaxii la dilay in xaruntiisa yaani duqeymo xoogan loo garaacay isla markaas ay la geeriyoodeen rag sare oo madaxdiisa kamid ah wasiirka gaashaandhigga la taliyiisa yaani rag fara badan oo noocaas ayaa la geeriyooday marka waxa uu cusub waxa weeyaan kulli hadda Khamenei meesha waa ka baxay in mantiqada laga cabsi qabo in xaaladda ay sii kororto Iran in weerarada inay sii ziyaadiso iyo in hada wixii ka dambeeya murshid cusub ay sameeyso murshidku wuxuu u taagan yahay yaani maamul ahaan uu u taagan yahay mid siyaasi iyo mid diineed buu u taagan yahay murshidku uu u taagan yahay marka in iclaamiyaan qofkii bedelaana waa laga sugaya laakiin inta taas laga gaaray kulay madaxweynaha iyo ninka garsoorka ugu sareeya Iran iyo rag noocaas ayaa hawsha sii wadaya laakiin waxa laga dareemayaa xaalad karkara wax loo tilmaamayo laga dareemayaa mantiqada ha noqoto Iraq Yemen يعني منطقة عرفت منها الشيعة كسوين كارهان وحلا قدر يا كركرة يا لا قدر يا أديد طبعا ساكا إيران ورك قاضي عماني مالها ورت سبحان الله هري ساكا كم ذا أنت أنا قاضي كسوق لها نضم بي خامني أما نكر محن قانا نكن خامني أرتو هرو صار قضي مدحوين ذلك إيران وصار قضي كون صار بورزيت اللي كود إلا زيت نسال كي مدحوين أيو ترك كاها ninkan wuxuu ku dhashay magaalo la yiraahdo Mashhad ku dhashay kadib meel la yiraahdo Qum oo xarunta diiniga ee Iran iyo wax ku soo bartay ilaa uu ka gaaray marxaladda ayatullah uu ka gaaray ayatullah waa marxalad la gaaro waa jaga la gaaro waa uu ka gaaray marka uu dhintay ayatullah ruuxullah al-Khomeini markuu dhintay 1989kii yaa lagu bedelay isaga murshidku uu noqday muddadaas ilaa iyo haddana isaga ayaa meesha murshid ka ahaa marka nin waxa lagu tilmaamay inuu yahay nin awood badan leh nufuud leh hatta waxa la tilmaamaa xilliyo hore Jamal Abdinaasir iyo muxuu ahaa Sayyid Qutb inuu heshiisiyay waxyaabo noocaas ayaa la sheegaa nin saameyn weyn ku leh marxaladda ayuu ahaa laakiin waayaha dambe daana way ka daba timaaday wuuna sii weynaaday marka hadda waxaad moodaa dad cusub dhiig cusub oo caaboon oo firfircoon oo laga yaabo inay ka sii adag yihiin ayatullah al-Khamenei inay meesha yimaadaan marka aan fiirino danaha Mareykanka iyo Israa'iil maadaama ninkan muhiimka ay ka takhaluseen suuragal ma tahay in danahooda ay gobolka iyo Iran ba ay ka dhaxfushadaan maya horta Iran in maamulkeeda uu sii taagnaado maamulka horta fiiri maamulka in qof la dilo maamulka ma baaboo meesha haduu system jiro oo nidaamku uu dhisan yahay oo kala dambeyn ay jirto ma saarka u burburayso waxa lagu leeyahay hatta hogaamiyaasha nin kasta wuxuu leeyahay inta soo ku xigeen uu leeyahay kana ka baxay automatically kana galaya nidaamku uu sii jiri karaa meesha laakiin dadka bedel way diyaarsiin laakiin hal mid baa jirto Iran mushkilad ay ku soo waajihi karaysaa Iran mushkiladda looga baqayo waxay tahay qoomiyad fara badan ayaa degan hadda nimankan qoomiyadii ka soo jeedaan waa Farisiyiin furus laakiin waxa degan Adariyiintii degan Turkumaankii baa degan Carab baa degan bulushkiyaa degan haddii qoomiyadkaas loo kiciyo oo la yiraahdo go'al la yiraahdo kale mesela Kurdiyiintii degan halis ay keenaysaa mar walba marka jiritaanka maamulka waxay ku xiran tahay dadka Iran inay raali ka yihiin maamulkaas ayna xaaladan adag hadii wadanku ku sugan yahay inay garab istaagaan wuu sii jiri karayaa Israa'iil iyo Trumpna ujeedkooda uma furayo laakiin hadii dadku ku kacaan taas ay markaas ay mushkilad imanaysaa marka aan fiirino marka in weeraradii ugu horeysay ee dagaalka Israa'iil ay ugu magacdatay codka libaaxiyada in Islaam daqadii ugu horeysay nin noocaas la dilo
fariin nooceeda diraysa ama maxay tahay banaanyaalka intaas mushkiladda jirtaan ku sheegaya mushkiladda jirta horta hore waxa uu sheegay Axmed Najad ayaa hore uu sheegay adiga horta sideedaba cadawga dibadda waxa ka xun cadawga gudaha ayaa ka xun caadiyan yani Israa'iil waxay ku yeelatay jawaasiisay ku dhex yeelatay Axmed Najad wuxuu yiri nimankii loo aasaasay inay muusaadka ka hortagaan Israa'iil sidoo Israa'iil yaa iyagii la shaqaaleysiiyaba hore uga digay ayaga muusaad noqday yes tiiba dhacday ku darso yahuudda ugu badan bariga dhexe waxay degan yihiin Iran ay degan yihiin taasna waxa way saameynteeda ay ku yeelanaysaa marka xaaladahaas oo dhan ayaa jira marka waxa uu leeyahay waxay ogaayeen ba bilii ugu dambeeyay meeshu ka dhaqaaqo halka uu aado soo u socday ogaayeen mid kale waxa lagu leeyahay waxay la qaadeen shalay kulankii madaxda uu la lahaa ay Allah ilaahay hadday ay jaans ugu fiicnaa hadda ayaan haysanaa saas ayaan ula beegsadeen marka waxaad moodaa ikhtiraaq oo sirdoon oo adag in lagu dhex sameeyay Israa'iil Iran marka ayadoo xaaladaas jirto in Khamenei isaga naftirkiisu meesha uu shirku ku qaban jiray oo shirka ku qabto geeridiisa way soo dadajisay ma leeyahay طبعا fiiri geeridiisa way soo dadajisay mid kale waxa jirtay wax tamuuh la yiraahdo ayaa jiray bariyaan raad gadasho ay sameeyeen mar Trump uu sameeyay mar waxa leeyahay waa la qaaday ama ma la qaadayo mar waxa leeyahay madax ugu sareysa ciidamada way ka digeen in weer la qaado wadkof wuxuu la wato wallahi Iran inaysan dhan ay aniidin u yihiin aysan oo imaanaysan inay mu'mineen sida oo tarajuc sameynayaan amal raad gadasho fara badan ayaa la sameeyay iyo wada hadaladii Cumaan iyo meelaha kale Cumaan iyo wax noocaas marka waxa weeyaan isheeg xarunta talafteeda hoos ayuu ku leeyahay gabadh hoos ayay laakiin madaafiicda loo adeegsaday lagu tuuray waxay wax aad u culus ha haddana duqeymaha cirka Israa'iil sameeyay kii ugu ballaarna ay sameeyaan ay ahayd meelaha ay duqeeyeen marka la eego marka aan fiirino marka shal waxa tiri mustaqbalka Iran nidaamka Iran meesha uu ka baxaa saaka talaabooyinka Iran ay qaaday weerarada iyo Cumaan Bahrain weerarweyn ka geystay Bahrain maxaa la xayaal Bahrain horta aan waxa ay la tahay maamulka Iran culays fara badan ayaa soo wajahaya culays qowmi ha noqoto ku kale madhabi ha noqoto ku sunniyiinta xataa mushkilad fara badan ayaa meesha ka haysata magaalada Tehran waxa leedahay hal masjid oo sunni oo rasmi ah weyn kuma yaalaya la yiraahdaa taas hadda halkaas uga baxan culaysaas haysta waan ku sheegay waxa ku xiran tahay dadka si u garab istaagaan dadka hadii garabkooda ka baxaan iyagana waa khalas ugu dhamaatay haddii aan eegno Bahrain iyo Imaaraadka maxaa loo tarkiisinayaa Bahrain Imaaraat طبعا tawaabic waxay u hayeen bariyaan dama xiriir wanaagsan in la hayn Israa'iil ay lahaayeen Bahrain waxa ku taalo ustuulka sanad abciidada badda ee sanad ee Mareykanka ugu weyn ayaa ku yaalo bad Bahr al-Arab iyo Khaliij al-Arabi iyo Badweynta Indian ayaa laga socdaa horta waa saas Bahrain ay taarikh u tahay Dubai iyo Abu Dhabiina waxa waaye ciil gooniyaad ay moodeen inay u qabeen Iiraaniyiinta sababtoo ah meelaha kale Kuwait iyo Qatar waxay duqeynayeen Kuwait meelaha waxay duqeynayeen xarumiyo wax noocaas لكن أبو ظبي ودبي حرمة استراتيجية جبل علي هبلو بني جناس يا الدخيني مركو واحد مدة إن أرجوسي إنه هالكاس وكجر ما دام أي هيركو يليهين يشجع إسرائيل وأقوى نفسية أديان وما سنتها وقت محمدو أذو سيوتو ترامب سوين واحد مدة إنه قدر هنا الدجال كان أما وهنجب هذا إذا بتجوج ساعة حالك صباحيا ضرنت أنت عن ترامب الدجال كان محيطه نوم بدل المحللين waxay aaminsan waxay leeyihiin Jeffrey Epstein malafaadkii laga soo bandhigay yaaba ninkan waxa leeyahay Trump maadaama uu muusad ku shaqeynayay ninkaas Trump far ayaaba laga hayaa far maadaama laga hayo ku qasban yahay in dagaalkan uu ka qayb qaato oo Israa'iilna uu garabta ha sababtoo waxaan muddo markii hore inuu xogaa ka yara gaagaabinay weerarka inuu qaado marka waxa leeyahay arrinka Jeffrey Epstein malafaadkiisa la soo bandhigay iyo Trump inuu si indal aana hadda uu Netanyahu uu qarxin inuu dagaalka soo galo waxa loo leeyahay odaga فرع يا بلغها يا اللي تاسع صورة كذا كذا اسمه أوكي جيسك أفريقيا أي سوماليا سامين نوعية إيمان كرتاس اللي كرنا والله جيسك أفريقيا سامين تكو يلندون واحد تهاي سامين نقالة صابته واحد أجنه هاي مضيق الهرمز أو حرماي بقى أولريدي إن أي مرة شدالك بقولك لا تندوك إنه مرة جراسك دوك بقولك بكويت إنه مرة أيام أجنه هاي مركز تكواد واحد تهرت شدالك إنه قاريوبه تكله هدو دالك شيء صعدنا إنه قتليون كي حتى ماركنه إنه قاريوبه هذول مركز قالوا جديد كي قالوا بحلو راعي لها كونتدي أي قالوا بس بيه أي قالوا إلا واحد كست everything كسعودة ويسكو حريين مركز سامين قال يا لا يا بسمان إنه نكاسو ويشتغل كانوا وهدو سيدا بدير هذا وما سنتها وتهاي داوديال أنت سيكسو جبنا فرنقين تان كوبان وكو إجينا حالة قبل كبرجة دحية سامين تا قبل كبرجة أفريقيا وكو يالن
karo iyadoo maalintii labaad uu galay dagaalka Iiraan Israa'iil iyo Mareykanka ka dhex tolanayo tan iyo kulantada waxaa idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh